in ka badan 1000 koobi oo ah musxafka Quraanka Kariimka ayaa waxay hay'adda maxalliga ah ee Al-Ihtisam Organization ay ka qaybisay xarunta xifdinta Quraanka Kariimka iyo barashada diinta Islaamka ee Majlis al-Macaarif al-Islaamiyya ee ku yaala deegaanka Kampala ee ka tirsan ismaamul goboleedka Kilifi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. kutubtani Quraanka Kariimka qowlka ee loogu talagalay ardada halkaasi wax ku barata inay ku xifdiyaan Quraanka Kariimka ayaa waxa bixiyay daaciga weyn ee reer Kuwait Sheekh Xasan Al-Hussein kana mid ah culimada waaweyn ee dunida Islaamka gaar ahaan wadamada Khaliijka. munaasabadan loo qeybinayay masaaxiiftan Quraanka Kariimka ayaa sidoo kale waxa goobjoog ka ahayd warbaahinta Star waxaana si gaar ah loo hadlay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta maamulka madrasada Majlis al-Macaarif al-Islaamiyya ee deegaanka Kampala ee ismaamul goboleedka Kilifi. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله leo tunafuraha kubwa sana tumepokea zawadi kutoka kwa mandugu zetu Waislamu kutoka Kuwait Sheikh Hassan Al-Hussein inshallah Mwenyezi Mungu amhifadhi fi dunia wal akhirah mambo yake yote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amjazie kila la khairi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amjalieni katika jannatul firdaus pia katika adabu ya kaburi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amondolee amhifadhi duniani na akhera inshallah. Kwa hiyo zawadi ambayo kwamba tumepata ni zawadi nzuri sana, hakuna zawadi ambayo kwamba inashinda kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nayo ni Qur'ani. Na pia inshallah tunatarajia tena kama hii tuongezewe na tunaongezee mara nyingi, maana hii markaz yetu hii markaz imeasisiwa 1985 kwa hivyo inshallah iko miaka mingi, na sisi leo tunashukuru tunajifakhrisha na watu kama ambao kwamba wametusaidia na zawadi kama huu kuliko zawadi nyingine inshallah taala. Wa hada, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mungu mjalie baraka, ametuletea msahafu, ametuletea na khairi kama hii imetokea kwa siku ya leo. Wanafunzi wote wamefurahi kupata kama hii msahafu, na sisi tunakurudishia khairi. Mwenyezi Mungu akubariki kwa kila jambo lako, Mwenyezi Mungu akuafu. qaar ka mid ah ardada Quraanka Kariimka halkaasi ku xifdisa isla markaana iyaguna dareenkooda in la wadaagay ayaa hadalladooda waxaa ka mid ahaa sidatan. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah aad baan maanta u faraxsanahay, waxaan noola keenay kitaabo ayaan noola keenay hay'adda iyo dadkii noo soo dhiibina. Alhamdulillah waan u mahadcelinaynaa, marka wax kasta Ilaahay xaqiisa ay ka ahaadeen. Alhamdulillah aadan u faraxsanahay, Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaan ku mahadinaynaa. Alhamdulillah kitaabka Quraanka waxa uu yahay midka Ilaahay subhanahu wa ta'ala soo dejiyay, isla markaana waxa ku jira hanuunka aadamaha, iyadoo maanta kutubta halkan lagu qaybiyay ay ka faa'iideysan doonaan ardada wax ka barata markaskan Majlis al-Macaarif al-Islaamiyya ee ku yaala deegaanka Kampala ee dowladka magaalada Mombasa. Maxamed Cabdi Bootaan, warbaahinta Star, deegaanka Kampala, ismaamul goboleedka Kilifi.